Welcome back. Please subscribe for more videos. Ha samaynin waxyaabahan markii aad wax cunto kadib. Ha seexan. Dadka qaar waxay caadaysteen markay wax cunaan kadib inay seexdaan. Taasina ma ahan arrin wanaagsan. Haddii aad seexato markaad wax cunto kadib, dheefshiidka dib ayuu u soo celiyaa cuntada 2 saacadood ilaa 3 saacadood u kaadi kadib seexo. Ha qubaysan cuntada kadib. Waxaa wanaagsan inaad u kaadiso ilaa 20 daqiiqo kadibna aad qubaysato cuntada kadib. Dheefshiidka jirka wuxuu u baahan yahay energy iyo socodka dhiigga, laakiin markaad ku qubaysato biyo diiran, dhiigga wuxuu u sii qulqulaa dhanka iyo maqaarka. Sidaas darteed marka dheefshiidka waxaa ku adkaanaya burburinta cuntada. Ha ku degdegin cabidda shaaha ama walxaha kulul. Inkastoo uu shaahu leeyahay caafimaad, laakiin ma wanaagsana in la isticmaalo cunida kadib. Cabidda shaaha cuntada kadib waxay la falgali kartaa soo nuugidda iron-ka ku jira jirka, maadaama uu shaahu ka samaysan yahay tannic acid, taasoo ku xiran iron-ka iyo borotiinka cuntadeena. Isticmaal khudaarta cuntada ka hor. Waxaa wanaagsan khudaarta in la isticmaalo cuntada ka hor ama inta aad cunayso cuntada. Khudaartu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu fudud oo uu dheefshiidka burburin karo. Biyaha barafka leh uma ogolaadaan cuntada inay si fiican u dheefsato, sababtoo ah waxay keentaa isku darka cuntada iyo biyaha. Biyaha diiran ayaa ka caawiya inay si fiican u nuugaan nafaqada una sii gudbiyaan jirka. Muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. Waxaan idin soo wadaa muuqaal kale oo aad u xiiso badan insha Allah. Some Universe YouTube channel contains educational content and tricks that will help you gain more in the scientific world.